muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo batay dad Soomaali ah kuwaas oo sheeganaya inay yihiin calmaaniyiin amaba ay u ololayaan calmaaniyadda. haddaba waa maxay calmaaniyad? su-aashaas dad badan ayaa ka jawaabay, dadkaas oo isugu jira aqoon-yahano, wadaado, waxgarad iyo noocyada kala duwan ee bulshada. laakiin anigu waxaan doonayaa inaan uga jawaabo si ka bedelan sida ay dadkaas uga jawaabeen. waxaan doonayaa inaan ka bixiyo faahfaahin dheeraad ah aniga oo ka fiirinaya dhinacyo kala duwan sida mabda ahaan, falsafad ahaan, siyaasad ahaan, dhaqan dhaqaale iyo wixii lamid ah. haddaba haddii aan ku horeeyo dhanka luuqad ahaan, ereygan calmaaniyad ama alcalmaaniya waa erey carabi ah. dhigiisa ingiriisku waxaa noqonayaa secularism, kaas oo qodhiisu ka yimid luuqadii hore ee qadiimiga ahayd ee laatiinka. xasuuso waxaan ku yiri luuqadii hore ee qadiimiga ahayd ee laatiinka waxay kaa caawin doontaa in aad fahanto waxyaalo soo socda oo aan halkan ku sheegi doono. ereygaas marka luuqad ahaan wuxuu noqonayaa adduun ama adduunka quseeya, ama si kale haddii loo dhigo inta la noolyahay quseeya, ama dhanka kale markii laga eego waxaa la dhihi karaa aan qeyb quseyn, wax maqan quseyn, ilaahay aakhiro qeyb wax ah aan quseyn. haddaba ereygan isticmaalkiisa marka la qeexayo waxa ay ku xiraa doontaa dhanka aad ka fiiriso, maxaa yeelay calmaaniyadda dhinacyo badan ayaa laga fiiriyaa. tusaale ahaan, mabda ahaan marka la qeexayo calmaaniyadda, qeexitaanka ugu dhow ee dadku isticmaalaan waxa uu yahay kala saarista dowladda iyo kaniisadda. sidoo kale xasuuso waxaan ku iri kaniisadda, maxaa yeelay arrintan asal ahaan maysa quseyn masaajid. marka waxaa lagu qeexaa kala saaridda dowladda iyo kaniisadda. haddaba inta aanan gaarin qeexitaanadeeda kale ama aanan ka fiirin dhinacyo kale, waxaan doonayaa inaan ka sheekeeyo taariikh kooban oo ku saabsan calmaaniyadda ee ka timid, yaa keenay, maxay u keeneen, maxay ugu talagaleen iyo wixii lamidka ah. horta taariikh ahaan mabda'a calmaaniyaddu ma aha wax hal maalin dhashay ama dhowr sano dhashay. waa wax la dhihi karo waxay soo socdeen inta la og yahay 1000 sano in ka badan. fikradda calmaaniyaddu asal ahaan waxa ay ka timid Yurub. wax hal maalin dhashana ma aha ee waa wax maalinba heer soo marayay. sababta keentana waxa ay tahay Yurub waxaa ka talin jiray kaniisadda kaathooliga ee aan naqaano maanta ee ka arrimisa magaalada wadankana ah ee loo yaqaano Vaticanka ee ku dhex taala Talyaaniga, uuna madaxda ka yahay Pope. kaniisadaas ayaa muddo 1000 sano ka badan kasoo talinaysa Yurub inteeda badan. markiisa ayay si toos u talinayn waxaa wakiilo ka ahaa boqorro yaryar oo ayaga naftirkooda aad u adeecsanaa kaniisadda. kaniisadda waxa ay ku eedeysneed in ay wax kasta oo nolosha ka mid ah ay la wareegtay, diin ahaan, dowlad ahaan, waxbarasho, caafimaad. musuqmaasuqeedana oo saa'id noqday oo qof aan ayaga soo marin uusan waxba helin. waxaa kale ay ku eedeysneed inay u diiday dadkii inay wax fahmaan, wax kastana waxa ay ka dhigeen lacag. tusaale waxaa loo soo qaataa in qofkii xataa doonaya in loo dembi dhaafo oo wadaadu tegi jiray, lacag sii jiray, kadib rasiid lasoo sii jiray in dembigiisa la dhaafo. haddii aadan lacag dhiibeyn, dembigaada waad wadanaysaa. haddaba fikradda ah in kaniisadaas si uun la yeelo waxa ay soo martay warar kala duwan. marar badan ayada dhexdeedii ayaa kala jabtay, orthodoxka oo mar go-ay, protestantka oo ayaguna qayb la go-ay. adiga sheekadaas waxay soo socotaba oo ayaga dhexdooda isu haysteen muddo 300 sano ka hor ah. waxaa soo xoogeystay fikraddan ah aan kala saarno dowladda iyo kaniisadda. marka sheekadaas asal ahaan ma aysan quseyn islaam, maxaa yeelay Yurubta qiimaha islaamku ka taliyo waxay ahayd meel loogu yimaado cilmiga iyo horumarka iyo xadaaradda iyo ilbaxnimada. Yurubna waxa ay ku jiri jirtay waxa ay u yaqaanaan casriga mugdiga. dadkii soo bilaabay riixitaanka fikradahan calmaaniyadda waxaa ka mid ahay dad ay aad u saameysay kana masayray horumarada ay gaareen dowladihii islaamiga ah ee Yurub ka talinay sida Andalus oo kale. taariikhdaas yar waxaan ka ogaanaynaa in calmaaniyaddu ay tahay wax asal ahaan ka yimid Yurub, aysan quseyn meel kale, ayna asal ahaan ahayd wax ay xal ugu raadiyeen wax ay markaas u arkayeen dhibaato haysata. mabaadi'da calmaaniyadda maalinba heer ayay soo marayeen, laakiin waxaa jira tiirar ay ku taagan tahay. qaababka kala duwan ee loo qeexo calmaaniyadda marka laga fiiriyo mabda ahaan waxyaabaha ay ku taagan tahay waxaa ka mid ah in la kala saaro dowladda iyo diinta, in dowladdu ay dhexdhexaad ka ahaato arrimaha diinta, in dadka loo fasaxo in ay siday rabaan u fikiri karaan una dhaqmi karaan ayagoo aan ka baqayn cawaaqib xun inay kala kulmaan, ilaalinta xuquuqda shakhsiga ah, in dowladdu ay go'aanadeeda ku salayso cilmiga adduunyo ee la yaqaan ama waxa muuqda, in wadaadadoona diinta xor u ahaadaan
dowladana ay siyaasadda xor ahaa inay dowladda u dhaxayso dadka diin kastaba ha haystaan in dowladda dhexdhexaad ka ahaato diimaha iyo madaahibta kala duwan ee waddanka ka jira in aan dadka lagu qasbin inay diin gooni ah haystaan ama ku dhaqmaan xasuuso marka taas waa markii aan ka eegno xag mabda laakiin xag siyaasadeed markay timaado dowladuhu siyaabo kala duwan ayay ugu dhaqmaan oo waxyaabaha aan soo sheegnay qaarkood dowladaha qaar way wada qaateen qaarkoodna midka ay rabaan ayay kala baxeen laakiin marka ay noqoto falsafad ahaan marka laga fiirsho falsafad ahaan waxa ay noqonaysaa diinta in laga saaro sideeda dhanba nolosha shaqsiga iyo tan mujtamaca in laga fogeeyo diinta waa falsafad markay tahay marka wuxuu ku leeyahay diintu waxay asal u tahay dibdhaca iyo cilmi la'aanta iyo fikir la'aanta iyo waxyaalaha noocaas ayay asal u tahay ayay ku leedahay markay falsafada tahay waxay leedahay markaas go'aamada waa in lagu gaaraa sayniska bis wax kale aan la soo dhexgelin walaa cilmi kale cilmi aan saynis ahayn inaan go'aan lagu qaadan cilmiyada kala duwan ee dunida ka jira inaan dowladda waxba go'aan ku qaadan ee ay ku qaadato sayniska oo kaliya in dadka loo diido inay muujiyaan shacaar diimeed oo dhan waxaa rabtaa ahaate wax diin loo jinaya si babliga inay u muujiyaan ninkii gurigiisa ku tukanayo oo kale waa okay laakiin dadku xataa inay meelo babliga ku tukadaan ama ku cibaadaystaan aan la ogolaan marar kale calmaaniyadda waxaa laga fiiriyaa dhanka dhaqan dhaqaale tusaale ahaan in dowladda xooga saarto in dadku ay u fikiraan qaab shakhsi ah iyo dantooda inay ka shaqeeyaan iyo baashaalkooda iyo naftooda iyo waxyaabo maadiya inay helaan shaqo lacag iyo waxyaalaha lamida waxbarasho hor sare waxaa laga shaqeynayaa in dadku u fikiraan qaab shakhsi ah oo kaligood ah oo daniistanimo ah oo qof kasta dantiisa kaliya ka fikiro iyo naftiisa iyo shaqadiisa iyo lacagtiisa iyo gurigiisa gaarigiisa iyo waxyaabo lamid ah uusan waxyaabo kala fiirinba calmaaniyadda marka marar badan waxaa lagu sidkaa mabaadii kale ama afkaar kale markaas baa waxaa kasoo baxaya wax cusub tusaale ahaan turkiga oo kale waxaa lala mataaneeyey qowminimo markaas waxay dhashay anagoo turki ah si af carabi u tukanaynaa si af carabi quraan u aqrinaynaa waa inaan afkeena ku aqrisanaa waa inaan afkeena ku tukanaa tusaale ahaan faransiiska oo kale calmaaniyadda waxaa lala lamaaniyey liberaalnimo waxa ayna dhashay yaan xijaab la gashan yaan koofi la gashan xafiisyada dowladda yaan tusbax lala gelin iyo waxyaabo lamid ah mararka qaar waxaa lala mataaneeyey sida ruushka iyo soomaalidii hore dowladii hore ee soomaaliya markaas waxaa dhashay in culumadii soomaalida la waayo mararka qaar waxaa lala mataaneynayaa communism sida shiinaha iyo kuuriyada waqooyi hadda dad badan way ogyihiin xoolaha ka socda Chinaha inay diin oo dhan aysan ogolayn qaas ahaan diinta islaamka aysan ogolayn masaajidda burburisay qof kasta oo shacaar diineed lagu arkay la xiray ama la dhibaateeyay dadkii la cadaabayo la isku dayay xataa wax wixii diin ku saabsan in maskaxdooda laga dhaqo marka waa calmaaniyad iyo communism isla socda wadamada qaar waxaa lagu tilmaamaa in calmaaniyaddooda ay qabowdahay sida Malaysia oo kale wadankii oo Albania ah haddana diinta islaamku galaangal weyn ayay ku leedahay ama Greega oo kale wadankii oo calmaani ah kaniisad galaangal weyn ayay ku leedahay go'aanada ay dowladdu gaarayso haddii aalad waxbarashada dhinacyo badanba mowduucan waa mowduuc aad u dheer wajiyo badanna leh waxaan qiyaasayaa inaan looga boga karin hal clip iyo waxyaabo lamid ah laakiin intaas ayaan ku daynaynaa haddii wax uun ay kaaga kordheen mowduucaas inaad subscribe garayso oo share garayso mahadsanid